www.rtv.com. walaalkay arjumaan muu tagin gurigiisa baajo ku yaalay orda baarka taga oo ka soo baadha inuu halkaa ku soxay isagu dhaqso waayo walaal haddaad ka tagta xitaa ku dayn maaya ma ku soo qaraacayaan soo hadal walaalkayow halkeed joogta arjumaan ii sheeg meel fog ma jooga saaxiibkay inu yaro tegey wax dhibaa jira war miina isku ogi inaad samaajo tagto samaaja war waan tegayaa baan kuulisani kuu sheegay midda kale howlo yar gaaraan yaro watay imaka laakiin waan baxaya xidhiidhka xaaskaaga iyo sodoqaaga khalkhalmaya anigu waad idiga nafisaysaa arjumaan 100% akhlaaqda ayaa kugu yar anigu arrimaha kaalama hadli dantaada ayaan wadaa halow arjumaan ilaahda arjumaan miyaanadii ku haldanisa telefoonka igu dhigaysa aniga waxaan bila dhaqankii muxuu ahaa maxay saas u dhacday maxabi saabun laakiin si cuntada ka hor buka la isticmaalo ma fiicna waa dhaqan horan lahaa ooya hore u soo deg iskuulka ayaad ka habsaamaysaa ooya maxaad kana joogtaa maxaad igu sheegi weyday mar hore ay igu dambaysay markii igu dambaysay may hadli kareen hal mar ma la kulmi karaa walaasheen waan tagayaa wax yarkeedii walaashay adiga dartaa waan beed u sameynayaaye maya anigu waan habsaamay iskuulka laakiin si ma habsaami walidee anigu niyadu ma hayo bun ma cabaysaa adigu yaa tahay iyadu waa saaxiibadii aan meel ka wada shaqayno hada fikir wanaagsan weyn waan cabayaa hay walaashaydii geeraliin macaana ma cabi karaysaa labada mid masaasad baa ugu soo shubo u keen anigu run ahaantii fikradaada waan ka helaybaa ooya idhigiisa walaashay in xalay tole wixii dhacay anigu waan ka yara badbadiyey moog tahay ma iska kay saamixi kartaa adigu waxaa may dhicin walaashay waan sii soconay makana nabadgeliyo kaale anaa baska kusii gaadhsiinaya oo sideebad kusii gaadhsiinaysa adiga aslaan baa guriga ku keenay ma gaadhibad wadatay maya ma wadan gaadhi waan ka xumahay nabadgeliya waad ku mahadsantahay sidaad gurigaaga iigu soo dhaweysay waxban dareemayba gurigaygii inaan joogoo kale Thank you.